السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل إيا برنامج كيني ليابك أدونك أو أينو كاكا هذالنو موقالة إيا دعدوينك اللوغو هذا انت بدن يهي براه بلشدة أو آلابات كلا سعوتان channelك انتفاع هاي لابن سبسكرايب سادو لا سعوتو فيديو يضع عسوبين سوغلين دونا إن شاء الله ننتوغا أو حاذي غوري كويا لمقالة تعيس إيه دالك يمن أيا ورقدرها لقيلنا ودافا يقويسكي لها هويقا وباردي تاسي أو وقو عديني سبوتا كو كلفتو إنو غوري غودا أصور دعو أو وحاضو ألاب لغو قيمي لبا بقولي قدك ريالك يمانيقا أو ديقان $500 وحانو توغاني نقضي loogu hadalhaynta badan yahay shabakadaha xiriirka bulshada internet sida wakaalada wararka Turkiga ee Anatolia ku warantay tuugan ayaa xaday guri ku yaala xaafada Sahra ee magaalada Tis oo ku taala bartamaha dalka Yemen tuugan ayaa xaday dhammaan alaabtii taalay guriga oo talaagada roogag iyo maacun kala duwan ay kamid tahay guriga uu tuugan xaday ayaa sida wararku sheegayaan cidlaha oo qoyskii laha ay dagaalada uga carareen toddobaad ka horna la faaruqiyay waxaanu helay guriga oo aanay cidi joogin oo inta uu jabsaday alaabtii taalay oo dhanka gurtay hase yeeshee dhacdada la yaabka noqotay ayaa ahayd warqad raaligelin ah oo ninka tuuga ahi guriga u dhaafay qoyska uu hoygooda xaday waxaanu warqadan ku cadeeyay sababta ku kaliftay inuu xatooyo weyn kula kaco qoyskan sida uu Tawfiiq Mushtaaq oo kamid ah qaraabada qoyska tuugan gurigooda uu xaday wakaalada wararka Anatolia u sheegay tuuga xaday guriga ayaa warqad uu gacantiisa ku qoray u dhaafay qoyska taasi oo uu ku dhajiyay albaabka talaagada uu kaga tagay guriga warqadan oo qof kasta oo guriga soo gala si degdeg ah u arkayo talaagada uu albaabkeeda ku dhajiyay waa shayga kaliya alaabtii guriga taalay ka hadhay ee uu tuugu ka tagay tani waa warqada ninka xaday uu qoray qoyska waxaanu qoraal gaaban oo warqada ku dhigay ku yiri wallahi idimaan xadeen ee gaajo ayay u kaliftay iga raali noqdo waa walaalkina Cabdo Axmed intaas waxa ahayd qoraalka uu tuugan u dhaafay qoyska uu gurigooda sii baadhay warbaahinta dalka Yemen iyo kuwa Carabta oo si weyn uga warantay ayaa badankoodu ciwaan uga dhigay tuug eeda badan oo xaday guri ku yaala magaalada Tis kaasi oo qoyskii gurigooda dhacay warqad raali gelin u dhaafay